maalin wanaagsan idilkii ku soo dhawaada qalbi furan oo qabyaaladka nadiif ah waxaan jeclahay inaad la wadaago sheeko aad iyo aad u xikmad badan hadda ka hor nin ayaa wuxuu ka shaqayn jiray airportka diyaaradaha kadib wuxuu jeclaa mar walba barmar uu diyaarad dooliyo sidoo kale marka qaarkood wuxuu nadiifin jiray diyaaradaha gudahooda maalmaha kamid ah ayuu diyaaradda gudaheeda galay wuxuuna ku arkay asagoo kursiga dooliyaha nadiifinaya buug ay ku qoran tahay buugga koobaad ee sida diyaarad loo dooliyo buugga ayuu kala furay akhris ayuu ku bilaabay buugga koobaad ayaa waxaa ku qorneed si aad diyaaradda u kiciso riix botonka cagaaran botonkii cagaarnaa ayuu riixiyey waxaa dhaqaaqay isla markiiba oo istaarmay waa injiinkii motoorkii diyaaradda waxaa hoos ku qoran haddana fiiri bogga labaad boggii labaad ayuu gediyey waxaa ku qoran si diyaaraddu ugu cararto waddada waa runwayga diyaaradda riix botonka jaalaha ah badhanka jaalaha ah botonkii jaalaha ayuu haddana uu gujiyey ama uu riixay waddadii ayay diyaaraddii ku carartay waxaa ku qoran fiiri bogga saddexaad tallaaba ayay u dhiibaysaa ilaan duulayaashu waxay ku socdaan amarra isxiga bogga saddexaad markuu eegay waxaa ku qoran si diyaaraddu hawada u gasho riix botonka guduuda haye daanjar khatar xaalku ma fiicna diyaaraddii hawada ayay gashay aad iyo aad ayuu u farxay waa wixii laga filan karay fuad qabyaaladida oo aan ahaan dooliyay haddii diyaarad intuu taataabtay ay hawada gasho farxad iyo naxdinba waa jirtaa 30 daqiiqo kadib ayuu damcay inuu dejiyo diyaaraddii hoos waxaa ku qoran fiiri bogga afraad diyaaraddina hawada ku jirtaa 30 daqiiqo dhan ayay hawada ku jirtay hadba dhinac ayuu eegayay markan wuxuu yiri alleenayo diyaaraddu ay dejisaa bogga afraad markuu eegay waxaa ku qoran si aad u dejiso diyaaradda soo iibso buugga labaad ee duuliyanimada waxaana laga helaa dukaanka duuliya bookshop oo ku dhex yaal airportka waagi ayaa ku baryay haddaba qofka halkaas diyaaraddii intuu kiciya asagoo aqoon u lahayn asagoo wax taabanaya hawada ay la gashay buuggu ku soo dejin lahaa aqoonteedana aan lahayn waxaad sugtaa waa maxay halkaas ayay fahmiito noloshiisa ay ku dhamaatay haddaba walaal mararka qaarkood waxaa jirto waxyaabo inaan aqoon u lahayn oonu faragashanno ha faragashan waxaad aqoonin oo ay ka mid tahay siyaasadda iyo waxyaabaha kaleba fadlan mar walba ku dadaal waxa aad taqaanid inaad ku ekaatid waxa kale ee dadka kale kaaga cilmi badan yihiin iyaga inaad uga dambaysid taas waxay ku baraysaa nolosha dhabta sheekada waxaa qoray Yaxya Amiir waxaan ka soo qaatay Facebookga waana sheeko aan aad uga helay magacaygu waa Faatiq Qabyaaladid hadda channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe si aad ula socotid sheekadan sheekooyin lamid ah meel walba joogtaan waxaad ilaahay mahadsanid ومركلية دا ماشي جديدة سوى حكومة سبسكرايب يا ينبلان في التاكسي سوسو مرودة كوكسولا صدق معها يلا باجي كان لو خير لا يوم